kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya Ciro oo qaramada midoobay ka dalbaday go'aan uu ku dagaalgalo. Haddaba muxuu yahay go'aankaasi dagaalka ee Ciro uu dalbaday? Cabsida cadawga Somaliland soo food saaray oo xog laga helay. Djibouti oo qarka u saaran inay tallaabooyin dib u deg ah ay sameeyaan. Ciidamadii iyo maleeshiyaadkii la soo dhawaa gobolka Owdal oo amar culus la duldhigay. Mucaaradka oo dacwad ka gudbiya Xasan Sheekh Maxamuud. Shuruudo lagu xiray wada hadalka u socda dowladda iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka. Ciidankii Laftagreen oo duqeyn lagu beegsaday mar kale. Dowladda oo qaadaysa tallaabooyinkii ugu dambeeyay duqeyn culus oo ka dhacday Baydhabo duleedkeeda. Wararkii ugu dambeeyay Trump oo sheegay inay Iiraan dalab gudbisay. Dalabkaasi haddaba muxuu yahay? wararkaasi waxay nagu soo kordhay akhbaraad kala daawan doontaan, balse marka hore si aan faafahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garaysa leeg saarto meel fog gaarsiiyo qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan inuu kusoo gudbina adigoo rukumanaya barteena YouTube channel sidoo kale furo gambaleelka digniinta aragtidana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeba. waa hagaag waa 11 bisha June haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarka aad ku daawateen markana adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi adigii ubadkaaga si sahlan ku barta quraanka kariimka markasul ihsaan online waxay diyaar idin la tahay barashada quraanka kariimka iyo shareecada islaamka 24 saac markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar xeel dheerayaal ay madrasadooda ka aflaxeen arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa si aad uga faa'iideysato fursadan qaaliga ah fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda. Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Somaliland ayaa waxa uu ka dalbaday qaramada midoobay codsi la xiriira in uu qaado tallaabooyin military kadib markii ay kordheen dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socday maalmihii ugu dambeeyay gobolka Owdal. Ciro ayaa dalbaday in tallaabooyin military uu qaado taasi oo ka dhigan mid cabsi xoogan hadda abuurtay iyada oo durbaba ay soo ifbaxayaan in qorshayaasha socda iyo tallaabooyinka xasaasiga ah ee la xiriira qorshihii ugu dambeeyay ee ciidan go'aanka kama dambaysta ah ee loo qaaday tallaabooyinka isu soo tarayay waqtiyadii ugu dambeeyay iyo ciidankan sida gaarka hadda u qaaday dhaqdhaqaaqyada hubeysan ayaa waxa ay muujinayaan in mar kale ay si degdeg ah ugu lug leeyihiin qaadista tallaabooyin waaweyn oo culus iyo go'aan gaaristaasi oo la xiriirta in si kama dambaysa markani loo qaadayo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay. Hogaamiyaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaana waxa uu dalabkan u diray si kama dambaysa qaramada midoobay isaga oo gudbiyay ilaa iyo dhowr gal dacwadeed oo kala duwan oo ku sheegayo in ay qaramada midoobay fasaxdo howlgal ciidan oo ay Somaliland ku sifayn doonto dhinacyada ay ishayaan taasi oo ka dhigan mid cabsida hadda sii siyaadisay. waxaa cabsida saaran cadawga Somaliland lagu sheegay mid korortay saacadihii ugu dambeeyay kadib markii tallaabooyin waaweyn oo cabsi badan abuurtay ay qaadeen ciidamada Somaliland. waxay soo bandhigeen oo ay banaanka keeneen dabaabaad culus iyo tallaabooyin ay qaadayaan ciidanku taasi oo ka dhigan mid ay dardar gelinayaan. qorshihii ugu dambeeyay oo ahaa mid aad u culus ayaa soo tarayay waqtiyadii la soo dhaafay waxaana tani ay qayb ka tahay isla tallaabooyinka ciidanku ay qaadayaan iyo howlgallada culus ee Somaliland ay u qaadayaan dhanka Djibouti. Djibouti waxaa la rumaysan yahay in dhaqdhaqaaqyadan iyo tallaabooyinkan hadda socda in ay si gaar ah u sii xoojinayso dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyo tallaabooyinkii ugu cuslaa waxaana ay tani ka dhigan tahay mid sii xoojisay qorshaha kama dambaysta ah iyo dhaqdhaqaaqyada hubeysan ee socday iyada oo ay Djibouti dhankoodu dib u gurasho markan sameynayaan ciidankooda ayayna Djibouti dib uga celinayaan halkaasi oo la ogaaday in tallaabooyinkan loo qaadayo si kama dambaysa waxaana taasi ay ka dhigan tahay mid xoojinaysa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyo go'aanadii ugu waaweynaa oo ay dhinacyadu u qaadeen tallaabooyinkani. markan haddii aynu eegno dhinaca kale mucaaradka ayaa waxa ay dhankoodu gudbiyeen xogo ku aadan diidmo Xasan Sheekh Maxamuud ka timid iyo sidoo kale qorshihii ugu weynaa waxaana
tallaabadani ay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka mucaaradku ay ku tilmaameen in xasan sheekh maxamuud aysan wadahadal dambe la sii fariisanaynin. shuruudo ayaa la sheegay in lagu xiray wadahadalka, taasi oo adkeyn doonta xaaladaha ugu dambeeya go-aan qaadashada iyo tallaabooyinka dhinacyadani ay mowqifka ugu dambeeya u qaadan doonaan. waxay ku adkaysteen in dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee socday iyo tallaabooyinkii ciidan ee la qaaday maalmihii lasoo dhaafay oo weliba dowladdu ay waaran u jartay qaar ka mid a xubnaha siyaasiyiinta ay abuurtay in la bartilmaameysado hooyiga siyaasiyiinta qaarkood, taasi oo meesha ka saartay guud ahaan wax kasta oo wadahadal ah iyo sidoo kale wadadii wadahadal ee lagu soo laaban karay. waxaana shuruud adag ay ka dhigeen xubnaha siyaasiyiintan mucaaradka ahi in marnaba aysan aqbalaynin gorgortan dambe oo xasan sheekh maxamuud ay la sii galaan iyo beesha caalamka wadahadal ay u gudbiyaan, taasi oo ka dhigan in xilligani loo qaadayo tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo go-aankan la xiriira. waxa ay sidoo kale cabasho u gudbiyeen dowladaha Turkiga iyo sidoo kale dhinacyada kale ee taageersan go-aanada wadahadal ee hadda socda, iyaga oo sheegay in marnaba aan xilligan wax gorgortan ah la furi karin marka la eego tallaabooyinka ay qaaday dowladda xasan sheekh maxamuud. fila Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in amar dagaal ay bixisay iyo tallaabooyin weerar lagu qaadayo kadib markii saraakiisha hay-adaha ammaanka uu xasan sheekh maxamuud la kulmay, isaga oo si gaar ah diiradday u saareen tallaabooyinkii ugu dambeeyey iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo ka dhignaa in ay qorshahaasi kama dambaysa u galeen dhinacyadani, lana soo afjari karo tallaabooyinka qaarkood iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada u muuqanaya inay yihiin kuwo xoojinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyey. xogaha hadda la helayo ayaa muujinaya sidoo kale in ay xukuumadda ay qaadayso tallaabooyin kale oo ay ku howlan tahay go-aan gaarista qorshihii ugu weynaa iyo sidoo kale dhacdooyinkii ugu dambeeyey. waxaana ay mucaaradku ay sheegeen in weerar ay ku yihiin dowladdu, taasi oo ay qaramada midoobe iyo sidoo kale xubnaha kale ee wadahadalada waday waqtiyadii ugu dambeeyey ee odayaasha dhaqanku ay qeyb ka yihiin ay markaasi u gudbiyeen shuruudo adag oo ay ku xireen in ay dowladda la hadlaan, iyada oo weliba xaalku uu yahay hadda mid aada u sii cakirmaya. mucaaradku waxa ay saluug badan ka muujinayaan hanaanka ay wax u socdaan, tallaabooyinka ay markaasi muujinayaan dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee arrimahani ku saabsan, waxaana ay xoogga saarayaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee la xiriirta dhaqdhaqaaqyada arrimahani ku saabsan. waxaana ay tani muujinaysaa in si kama dambaysa loo qaadi doono tallaabooyinka ugu dambeeya ee go-aanka lagu gaarayo. waxaana ay sidoo kale tallaabadaasi tahay tii ugu cuslayd oo ay tallaabooyinkan si degdeg ah ugu qaadayaan, oo weliba lala xiriirinayo in ay yihiin xaaladihii ugu dambeeyey ee si gaar ah ugu xoogganayd dhaqdhaqaaqyada mucaaradka iyo dowladda. waxa ay taasi ka dhigan tahay go-aan gaaristii ugu dambeeyey iyo tallaabooyinkii ugu cuslaa, waxaana tani ay muujinaysaa in ay xoogga saarayaan dhaqdhaqaaqyada, sidoo kalena ay mucaaradka iyo dowladdu mar kale isku hayaan tallaabadii ugu dambeysay ahna midda ugu culus ee go-aankan lagu gaaray, iyada oo ay markaasi la xiriirinayaan dhinacyadani tallaabooyinka oo u muuqanaya dowladdu in aysan weli ka gaabinaynin go-aankeeda hubka dhigista mucaaradka. waxa ay gudbiyeen mucaaradku in uu ku socdo qorsho dagaal oo hubka dhigis lagu sheegay, waxaana ay ku adkaysteen in marnaba aan gorgortan dambe laga sii geli karin masiirkooda haddii dowladdu ay tallaabooyin culus u soo qaada markan, taasi oo ay ku tilmaameen in xaalka uu ka sii darayo, iyada oo weliba walaac xooggan ay muujiyeen kadib markii saacado kooban hawada lasoo geliyey in internetka iyo korontada la weyn doono, taa oo cabsi badan abuurtay. mucaaradka dhankoodana ku abuurtay cabsi oo la xiriirta in ay mucaaradka iyo dowladdu mar kale qorshayaal iska hor imaad ah markaasi dhinacyadu uu dhexmari karo.
markana haddii aynu eegno dhanka kale magaalada Baydhabo iyo ciidankii Laftigareen, faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar dhanka cirka ah oo ka dhacay banaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kaasi oo lagu beegsaday maleeshiyaad isugu jira xubno taabacsanaa Laftigareen iyo sidoo kale argagixisada Al-Shabaab. duqeynta oo ahayd bartilmaameed ayaa timid kadib markii dhaqdhaqaaq laga dareemay aagga magaalada Baydhabo, kadibna diyaarado dagaal ay halkaasi beegsi ka sameeyeen, waxaana la beegsaday maleeshiyaad ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo oo isku diyaarinayay halkaasi. wararka ayaa sheegaya in xubnaha la beegsaday ay doonayeen in ay soo weeraraan fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ee ku yaala koonaha magaalada ama banaanka magaalka, balse markii la ogaaday kadib ayaa lagu duqeeyey goobta. saraakiil ka tirsan laamaha amniga ayaa waxa ay inoo sheegeen in howlgalka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey argagixisada iyo maleeshiyaad kale oo la sheegay inay taabacsanayeen Laftigareen oo halkaasi ku sugnaa, balse ma shaacin tirada rasmiga ah. dhinaca kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ee ku aadan duqeyntan lagu bartilmaameysaday duleedka Baydhabo ee ka dhacday halkaasi, iyada oo maleeshiyaadka ku sugnaa goobtaasi lagu weeraray. horey waxaa magaaladan weeraro uga fuliyey ciidamo taabacsan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed oo ilaa iyo hadda ku sugan agagaarka Baydhabo, halkaasi oo ay ku leeyihiin fariisimo ciidan. weerarkan wuxuu ku soo aadayaa xilli ay shalay koonfur galbeed ay ka dhacday doorasho maamulkaasi uu madaxweyne loogu doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo bedelay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo hadda dibad joog ah, waana hogaamiyihii hore ee maamulkaasi, iyada oo durbaba ay socdaan dadaallo kala duwan oo ay dowladdu ku wado xasilinta magaalada Baydhabo ayaa lagu bartilmaameysaday duqeyntaasi. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno markan wararka ugu dambeeya ee caalamka, Trump ayaa shaaciyey in ay Israa'iil iyo Iiraan labaduba ay wadeen maalmihii ugu dambeeyey duqeymo iyo dagaal toosa. Trump waxa uu sheegay in dhanka Iiraan ay dalbatay in Mareykanku uu ka joojiyo hubka culus ama duqeymaha culus, iyada oo ay markaasi la tilmaamay in tallaabooyinkani ay noqon doonaan kuwo suurtagalnimada arrinkaasi xoojin karta ama ay joojin karaan. waxa uu Trump sheegay in ay Iiraan dalbatay in Mareykanku uu ka daayo duqeynta hubka culus ee waaweyn, taasi oo meesha ka saaraysa guud ahaan wax kasta oo isbedelay saacadihii ugu dambeeyey. waxaana Mareykanka iyo Iiraan ay maalintii labaad si isku xigta duqeymo ay uga wadaan bariga dhexe, iyaga oo isku jawaabaya xilli xabad joojintii hore loogu dhawaaqay weli aysan dhaqan gelin. tallaabooyin iyo dhaqdhaqaaqyo xoog lana ay halkaasi ka socdeen, iyada oo ay dhinaca kale tallaabooyinkaasi saameyn xoogan ku yeelatay dhinacyada ishayahada ee tallaabadan sida gaarka ah ugu lugta leh, waxaana ay mar kale ka dhigan tahay qorshihii ugu weynaa ee ciidan ee la qaadayo, iyada oo ay xooga saarayaan dhinacyadani soo afjarista mid ka mid ah tallaabooyinka ugu waaweyn ee ay si gaar ah u qaadi doonaan, iyada oo ay mar kale ku dhawaaqayaan Mareykanka iyo Iiraan tallaabooyin dagaal. guud ahaan daawadayaal, barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.